maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida waxaa maanta ka soo hor muuqday eedeysane Mustaf Maxamed Xuseen kaasi oo ku eedeysan ka mid ahaanshiyaha ururka Al-Shabaab iyo fulinta qaraxyada nooca lagu dhajiyay gawaarida oo uu maxkamadda ka hor qirtay in isaga uu ku dhajiyay 8 gaari. xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ayaa la yimid marqaatiyaal ay ku jiraan dad uu eedeysanaha ugu dhajiyay gawaaridooda qaraxyo ee ka badbaaday balse ku hanti waayay. sidoo kale maxkamadda ayaa waxaa lagu soo bandhigay muuqaal muujinayay in ay duubeen kaamirooyinka CCTV xilli uu isaga eedeysanaha ku dhajinayay gawaari qaraxyo. ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle Muumin Xuseen Cabdullaahi ayaa maxkamadda ka sheegay in eedeysanahan mar ay maxkamaddu ku riday xukun 5 sano ah oo uu dhameystay balse loo sameeyay dukumiinti cadeynaya in xukunkii maxkamadeed uu dhameystay isla markaana bulshada uu ka mid yahay hase yeeshee dukumiintigii la siiyay uu sheegay in uu si qaldan u adeegsaday isla markaana ugu adeegay ururka Al-Shabaab. bal wuxuu ka dhigtay ID card ama mataqaana aqoonsi oo dawladda ku dhex joogo mataqaana dhibaatana uga dhex sameeyo samaxayla qof yaani shabaabnimo ku cadaatay la xukumay xukun soo dhameystay ee warqadii xukunkii inuu la xukumay soo dhameystay cadeynaysa wata hadana fal dambiyad lagu qaban wuxuu magaalada ku dhex joogaa si caadi ah muwaadinka caadi u joogo u dhex jooga wuxuu u isticmaalay eedeysanaha xukunkii 5 sanaha ee uu dhameystay ee uu xabsiga ka baxay dukumiinti oo ku dhex joogo dawladdu ku dhex maro ayuu isticmaalay. General Abdullahi Buule Kami xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanahan lagu xukumo xabsi daa'in waxa uu cadeeyay in eedeysanahan uusan ka waantoobin dambi uu hore u galay. dhammaan intaas markii la isku daro waxay cadeynayaan sida uu khatar ummadda ugu yahay eedeysanahan haatan xiran oo maxkamadda hor taagan kaasoo haatan ka hor isagoo shabaab ah oo qarax baawur ku dhajiyay lagu soo qabtay lana hor keenay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ku xukuntay 5 sano xabsi ciidan maadaama ay dhimasho iyo dhaawac ka dhicin falkii lagu keenay 5 sano ayuu soo dhameystay dib buu ugu laabtay maanta wuxuu marayaa 8 qarax inuu afkiisa ka qiran yahay qaarna lagu soo qabtay sidaa darteed maadaama nafta Soomaalida oo halis ku yahay ninkan nafta oo halis ku yahay oo uu yahay dambi caadeyste aan marnaba ka soo waantoobayn waxaan maxkamadda weydiisanaynaa in lagu xukumo ciqaabta u qalanta oo ah madaxa ku furta xabsi daa'in inta uu nool yahay maxkamaddu waa maadsanta. qareennada u doodayay eedeysanahan ayaa maxkamadda ku soo bandhigay in eedeysane Mustaf ay qasbeen ururka Al-Shabaab waxa ayna cadeeyeen in loo soo bandhigay muuqaal muujinaya in la dilay rag saaxiibadiisa ah oo isaga la shaqeynayay ee sameeyay amar diido dhinaca shabaab gaar ahaan qodobka 23 waxa ka hadlayaa qofka hadii iraadadii doonistiis wax ka baxsan sameeyo oo inta la qasbo asaga oo aan doonayn waxaas inay sameeyo asaga sameeyo ayaa ka hadlaya wuxuuna leeyahay ciqaab lama saar karo qof oo qisad iyo doonis aan wax ku sameeynin. Mustaf wuxuu ahaa qof la qasbay oo la tahdiidiyay oo la yiri hadaadan ficiladaani sameeynin shalayto waa lagu xiray waa lagu soo daayay sax laakiin maanta hadaadan la shaqeynin Mustaf waa ku dileena sida uu noo sheegay annaga muwaakiliintiisa ahaan in la tusiyay dad la dilay oo isaga la saaxiibo ahaa oo barnaamijyadaas iskula jireen marka maadaama tahdiidkaas uu ku dhacay cabsi ayaa gelisay sida qiraalkiisa ku cadeed maxkamaddu waa mahadsantahay waxaan ka codsanaynaa in Mustaf eediisa loo qafiifiyo maxkamaddu inay ciqaabta noo fududeyso qodobka 4aad xarafkiisa ga. ugu dambeyntii fadhiga maxkamadda waxaa soo xiray gaashaanle dhexe Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida waxa uu cadeeyay in go'aan ay ka soo saari doonto maxkamadda eed loo haysto eedeysanaha. intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonto billahi tawfiiq.